difaacaddii saddextanaad ciidanka xooga gaarka ee dowladda Soomaalida ayaa maanta ku qalin jabiyay xerada tababarada ciidanka ee gaashaan khadar ee degmada Birqod munaasabadda qalin jabinta ciidanka xooga gaarka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeyay hoggaanka nabadgelyada dowladda Soomaalida mudane Mubashir Dibad Raagi iyo taliyaha guud ee ciidanka xooga gaarka Sareeyo guud Maxamed Axmed Maxamuud saraakiisha ciidanka mas'uuliyiin kala heer deegaan iyo bulshada qiimaheeda kala duwan hoggaanka nabadgelyada dowladda Soomaalida mudane Mubashir Dibad Raagi oo khudbad dheer ka soo jeediyay xarbada qalinjibinta ciidanka ayaa ugu horeyn u hambaliyay ciidanka sheegana in maanta cududda ciidanka xooga gaarka ay tahay tiirka uu ku taagan yahay deegaanku hoggaanka hadalkiisii wata ayaa sheegay in tan iyo isbedelkii kadib ciidanka xooga gaarka tiriya tayo kor loo qaaday waxaan leenahay bagaad maanta ku qalinjibiseen si nabadgelyo bagaad maaragtay ku soo biirteen bahweynta ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida aad baan idinku haweenahay tababar qiimo iyo qaayale waa soo qaateen waxaan leenahay waa isbedel qiimo leh oo aan hadda ka hor jirin ciidanka waa laga yaabaa in la tababari jiray laakiin hadda koorsooyin cusub oo xagga akhlaaqda xagga shuruucda xagga maaragtay maalinta ku xigta ku soo biiraya jirta taa maaragtay aad baan maaragtay aanu go'aaminaa waxa kale oo idin sheegaynaa maanta laga bilaabo waxaan aad ugu faraxsanahay idinku ay tahay inaad ku faraxdaan inaad ka tirsan tihiin ciidanka liyu booliska oo aad maaragtay shacabkiina iyo deegaankiina iyo sharcigiina iyo akhlaaqdiina iyo diintiina baad difaacaysaan waxaanu ku kalsoonahay in shaqada laydin idmaday aad ka soo baxaysaan oo aad tihiin dad maaragtay ummadooda iyo dadkooda maaragtay dhiigooda iyo naftooda u horeeya ciidanka liyu booliska meelo fara badan buu deegaanka ka howlgalaa waxaa ka mid ah xuduudaha waxaa ka mid ah gudaha shaqooyin aad u waaweyn oo kala duwan buu qabtaa isku dhaca qabiilku ka hortagaa cadowga iyo ciddii maaragtay shisheeyaha ee deegaankiina maaragtay dhibaato gelinaysa buu maaragtay ka difaacaa waxa uu maaragtay hayaa oo dadka la wadaagaa shaqooyin fara badan oo shaqadiisa xataa ka baxsan buu qabtaa abaaraha oo kale hadda shaqooyin aad muhiim u ah oo ciidanka liyu boolisku maaragtay qabtay oo intii aan kormeerka ku jirayna aanu soo maray shaashadahana hadda laga arko baa jira goobaha qaarkood oo kale dowladdu meelo aynan gaarin oo ciidanka liyu boolisku gaadho ayaa jirta oo aan anagu indhahayga marag ku soo aragnay waxyaabahaan ku faraxsanahay oo wanaagsan ee qabsoomay waxaa ka mid ah in shacabka iyo maaragtay ciidanka liyu boolisku ay hadda isla falgaleen midba midka kale maaragtay u garaabayo shacabkuna aaminsan yihiin ciidanku inuu ciidankoodii yahay oo ay had iyo jeer soo bandhigayeen meelaha aanu marayno oo dhan in dhibaatada ciidanka haysta ay shacabku noo sheegayeen ciidankuna sidoo kale noo sheegay dhibaatada shacabka haysata ciidanna wuxuu ciidan ku yahay waa shacabkiisa ayuu ciidan ku yahay marka waxaan idinka dardaarmaynaa raggiina hadda dhalinyarta ee hadda qalin jabinaya ee howlgelaya ciidanka ma soo haro akhlaaq iyo kala dambayn iyo hoggaansan idinka waxaa idinka rabaa marka aad goobihiinni tagtaan ee aad shaqada bilowdaan in ciidan idinka oo aaminsan ciidannimadiina waxa aad ku howlgelaysaan noqdo nidaamka ciidanka odayaal baan idin soo faragelin karin waxaan idin faragelin karin qof kaloo siyaasi waxaan idin faragelin karin oo aan maaragtay idin hogaamin karin oo tashuushda ku furi karin waa cid maaragtay ka baxsan qaab dhismeedka ciidanka ciidan baad maanta laga bilaaban tihiin saraakiishiinni baad leedihiin howlgalkiinni iyo qadanihii meeshii laydinku talagalay baad ka howlgelaysaan wax kasta oo faa'iido wax kasta oo waxtar hadday tahay xagga darajada hadday tahay xagga mataqaanaa mushaarka hadday tahay xagga korriinka hadday tahay waxaan kale ciidanka loogu qabo munaafacaad ciidan loogu qabo oo dhan hadday tahay kiinii waxyaal la soo gaadho oo laga warhayo ciidankaasi wixii uu mudnaa oo dhan baad mudanaysaan ciidanka deegaanka waxaan doonaynaa in la tayeeyo in waxyaabo fara badan lagu soo kordhiyo oo technology-ga la jaan qaada oo maaragtay noloshooda wax laga bedelo oo guryo loo dhiso sidii hadda ka hor baanu sheegaynay waxyaabahaas waxaad kala mid noqon doontaan ciidankaas hawsha aan idinka dardaarmayna waxa weeyaan hal hawlaan idinka dardaarmaynaa oo aan rabno inaan idinku celcelino hawsha aan idinka dardaarmayna waxa weeyaan shuruucda dhaqanka iyo akhlaaqda ciidanku leeyahay aan laydinka waayin
ciidankii hadda aanu gobollada markaan joogna aan soo maraynay halka kelmadda ee ugu quruxda badan ee maaragtay qofka qalbigiisa soo jiidanaysa ka helay aan ka helnay waxa weeyaan ciidanku isagoo meel rafaada ku jira oo xad jooga oo meel maaragtay qof bini aadama si ku yimaada shacab kale ayna jirin marka aan tagno kelmadda maaragtay qalbigeeda taabanaysa noo sheega waxaanu u dhaaranay inaan shacabkayga difaacno ciidanka saasaa laydinka baahan yahay dhankiisana madaxa maamulka xoogga ciidanka gaarka ah sarreeye guuta axmed cabdulaahi sareebaan ayaa kula dardaarmay difcadda 13-aad in hadda wixii ka dambeeya ay ka mid yihiin xoogga ciidanka gaarka ah si wanaagsanna ay ula shaqeeyaan goobaha ay ku kala howlgeli doonaan dardaaranaan faraya inaad ilaalisaan sharciga kala dambeynta anshaxa inaad ilaalisaan sidaan baad wax ku qaban kartaan haddii aad noo shaqadiinna marka aad gudanaysaan inaad ilaalisaan sharciga kala dambeynta amar qaadashada inaad ilaalisaan geestoodana qaar ka mid a ciidankii qalin jibiye oo aan waraysi la yeelanay ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga gaarka ah ayna ka qayb qaadan doonaan difaaca cadowga deegaanka waxaan u daarannay dharkeeda iyo dalkeedaba inaan difaacno ayaan diyaaruna aad iyo aad noonugu faraxsannahay waxaan diyaarunahay dalkeeda iyo dadkeeda inaan difaacno qolkii gobolka nageeyo ayaan diyaarunahay meel kasta oo xuduudaha ka mid a meeshay doonayba ha ahaato oo deegaanka soomaalida ka mid a diin nageeyo diyaar ayaan u nahay 100%. waxaan u daarannay dharkeeda iyo dalkeedaba inaan difaacno ayaan diyaarunahay aad iyo aad noonugu faraxsannahay waxaan diyaarunahay dalkeeda iyo dadkeeda inaan difaacno qolkii gobolka nageeyo ayaan diyaarunahay meel kasta oo xuduudaha ka mid a meeshay doonayba ha ahaato oo deegaanka soomaalida ka mid a diin nageeyo diyaar ayaan u nahay 100%.